iyo raxsan sada fiicanta xaaladaada jooga alxamdulilah soo jeedaan halkan ayaan marti ku ahay waxay soo dhaweynaya xasan malabsade oo halkan ku nool isaga iyo waliba saddexdii saxaas uusan ka kala keenin xaafado kala duwan balse halkan ay nolol ku wadaagaan waxaan arki doonaa nolosha ay ku nool yihiin qoyskan هاي سيليا في عنتين ما أنت هذيك مرتدينا في عندي سوا هاي سين لو سدوينا ما شاء الله ممتاز عاشو iyo sumayo waa saddexda xaas ee guriga qura kula nool saygooda Xasan Cabdirashiid oo loo garan og yahay malabsade nolosha ka dhaxaysa marwooyinka halkan wada degan waa mid ku dhisan iscaawin iyo isku faraxsanaan qofba qofka kale ayuu ku garabsiyaa qabashada shaqada guriga ee maalinlaha ah Xasan waxa uu iga waramay sida uu kala hor guursaday xaasaskiisa iyo qaabkii uu ugu qanciyay in saddexdii saxaas qol kaliya wada degaan السلام عليكم مركوات كونا وكسور دبينايا محل يرادا مانت وحا aan ku baraya walaalkay adii bulshada daawanaysa marwooyin keena maadaama aan soo booqateen gabadheeda ugu horeysay weyneed waatana waxa la yiraahdaa Caasha Cilmi Faarax waxaaska weyn ma sha Allah gabadhaas ku xigto waa marwadeedii labaad Mumtaaz Maxamuud Cilmi Allah waxaaska labaad gabadhii saddexaad oo guriga ugu dambeysteen waa taraa ayadina waxa la yiraahdaa maxalla Sumay Axmed Sheekh marka barasho wanaagsan brother ma sha Allah niyow waxa waaye maxaa la yiraahdaa waxaan deganahay gurigeena waa weyn yahay waxaan deganahay laba qol kamid ah waxaan degan aniga oo hadda kula hadlayo waxa qolkayga jiifto iyo nidaamkayga fadhiyo waa qolka kale tan waxaan degan gabdhaha marka waxa waaye waqtigooda iyo jawigooda waa saxan yahay mid kamid habeenkii waxa waaye faatixada iyo aan ilaahay u dhawaanin maarid ayaga soo gartan Allahu akbar goob lagu gado agabka la isku udgiyo ayuu leeyahay malabsade waana halka iskala jaan qaadeen saddexdii saxaas qofkii markaas aan ka helo waa la hadlaa waa isbaranayna marka isbarano aan xiriirkii u sheegto inay inaan u sheego waxaan leeyahay qof marwo nin xaaslanahay gabadha guriga joogto anigina waa ka helay infant dooqo waan jiraa infantaade marka ayagiina wallahi maadaama ay arkeen ani feelingkayga ama in aan waxa aniga rabitaankayga heerka u gaarsiisan yahay iyo daacadnimadeeda markay arkeen way soo dhaweeyeen infant ani hadda ma dhihi karo waxaas caqabadaas adag kala kulmis dhihi karo ani wax walba aniga oo jiro waxaan u sheegaa macnaha waa gabdhayga dan ayaga familkooda ka soo dhaadhicinayaan oo wax rabaan marka qaar marka aan kaftameen ani aado cida amal jiqam kaaga dhigay ani ciyaalka xaafadaas nanaanay amal waxay taagayeen maamada amal ama odaga amal waxay dhahay qof meel waxad meel ka mudo marka adiga meel aan ku caday hadaa ku qanacsantaada hortaada hor alla soo dheel amal baad xaasaska wiilkan dhalinyarada ah ayaa ka warbixiyay sida ay ugu qanacsan yihiin inay wadaagaan hal say iyagoon isku nacayn markii hore loo filaan ila noqotay waana qaadan waayay laakiin markii dambe xaajigayga waa ka bidin waa Soomaan waa iska yeelay hadda ka war noloshii alxamdulillah walaa ku faraxsana maadaama aan isfahanay gabdhii hal meel isugu nimaanay wax badan aan isla dhaqanay kale hadda waan ku faraxsanahay nolosha aan ku noolnahay aniga nolosheeda waan ku qanacsanahay xaajigayga iyo gabdhaha farxadan kula noolahay sida farxadda reerkay kula noolaan jiro kaleeto يعني تاس معناها فسرات مو وباهنا يعني وحا أنا كوقنا عسناي بهيت ماهنا ما دام حاسك ودن بيسي ويعني وجورسنايو كفر حسناي rajada malabsada ma ahan oo kaliya inuu ku ekaysto saddexda xaas ee uu hadda qabo balse iyagoo garbaha ka fadhiya ayuu waxa uu sheegayaa inuu jecel yahay inuu la guursado tii afraad horta wali waxa waaye boosa banaan infant marka dad badan oo soo qabteen waa arkeen igu ka jimaayaan ma aqaan ma dareenkayga arkeen arono baad dad badan oo soo qabteen waa arkeen dhaayaan faraa taayeen amal lamba qofka afraad aniga waa infant laakiin waxa waaye waa rajayna insha Allah hadii la helayo aniga aan qof aan ka helo dabeecadiis ama akhlaaqdiis ama aan sidii kar saddexdan gabdhood caafimaadkoodaan rabaa qofkan uu nololaan kara hadaan sidii karo inaan ku soo darbo rajaynayaa in la guursado saddex ama afar ma ahan arrin dood ka taagan tahay
balse waa ku qancinta haweenka wadaajinta hal hooy iyagoo la isla qabo. Maxamed Ciise Kona, Universal TV, Muqdisho.